السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي الصومالية دمان ميل كستاد جوجتان ولا لها قالقة. وإذن سلامي وحنكو سلامي يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا channel كيغا ومريان channel كسو دواذا إن شاء الله. ما أنتو حارب إنان كهدلو ولا ليال سان وأرقنايبا بالشدين وحكسو بطي غيرها الدمايو أو dadka kala tagayo oo isfuraayo aan ku soo batay marka arintaas aan maanta inaan ka caaw ka hadlo insha Allah haduu alla idmo wixii karaankeyga oo Ilaahay waafajiyo aan rabaa inaan idin la wadaago waxaan arkay horto dad badan oo reer badan oo dumay haddana waxa waaye reeraha badan qoysaska badan oo Soomaalida oo dumay waxa u badan badana marka arko oo aan fiiriyay waxaa dhibaatada dadka wada waxaa u badan nimanka u badan gabdho badan oo waxaan arkay oo hadda magaalada nala degan oo haddana waxaan arkay nimankii dhibaato badan ay ku sameynayaan oo caruur u haayo oo gabdhihii ay silcinayaan oo rafaadinayaan oo waxba ay la qabanaynin oo ay caawinaynin marka haddaan fiiriyo marka dhibaatada taagan waxaa u badan inta dhib sameynayo waxaa u badan nimanka dumar oo qaldana way jiraan oo qalad sameynayo oo Ilaahay kuma daraan ninkii dhibaayo oo reerka aan rabin macnaha inuu reerkeeda dhaqataana diyaar u ahayn way jiraan laakiin si u badan yihiin intaan arkay nimankii oo dhibaayo oo aad iyo aad gabdhihii u dhibaateeyay marka midda kale Soomaalidana waxaa waaye waxay ku xun yihiin laba qof kala tagayo labada qof markay kala tagaan oo calafkooda uu dhamaado waxaa eed la saaraya gabadhi la caynaya 4 saac gabadhi cay lagu wadaa oo la caynaya oo aflagaadi iyo dhibaato loo geysanaya oo dadkii hadda baraha bulshada qoyskii kala tagay oo hadda gabadhii iyo ninkeeda kala tago wiilkii waliba caanka ahaa oo baraha bulshada waa taqaaniina u maleeyaa wiilka oo magaciisa wiilka oo caanka ka ah baraha bulshada oo youtuberka caanka wiilkaas u dambeeyay intaan macnaha baraha bulshada aan ku arkay dad kala tagayo oo qoys dumay marka wiilkaas haataa gabadhi uu furay oo ay kala tageen gabadhaas haataa si xun loo aflagaaday wallahi gabadhaas aad iyo aad aan uga xumaaday war Soomaaliya iska daaya caayda iska daaya iyo aflagaadada gabadhaas heer waxa la gaarsiiyay wallahi ibla aan ka yaabay gabadhaas sida loo caynayo commentiyada loogu caynayo oo loo aflagaadeynayo qoyska haday kala tageen dadkii oo calafkooda uu dhamaaday in macnaha gabadhi ninka qaldami karo qaladka ninka labada qof waa laga dhici kartaa inay qalad kale yihiin marka hal qof kali in la saaro oo hal qof eedi dhan la saaro aad iyo aad uga xumaada horto gabadha waxay tahay ma taqaaniin qaladkiina iyada leedahay inuu asaga leeyahay waxba kama ogoodiin marka ina asagi macnaha ayada bis aad saartaan oo gabadhaas dhibaato badan loo geystay oo la dhahaata lacag ay xaday kani wallahi arintaas aad uga yaaba Soomaalidan wallahi yaabay leeyihiin war Ilaahay ka baqa dadka commentiyada dadku soo caynay horto Ilaahay ka baqa dad muslimiin dad walaalihiin in asaas u gashiin oo aan macnaha asaas qofka ugu aflagaadeysiin wax horta ceeb waa wax laga xumaadana waaye marka Soomaalida waxaa kale u sheegaya inay caydaan badan horta oo faraha badan inay iska daayaan war ummadda kale ajnaabta kale way jiraan youtuberay leeyihiin baraha bulshada ku jiraan ayaga waliba nooga badan oo nooga caansan haddana in ayagoo iscaynaya ama isku dhagan ama qof dumar la caynaya ma arkaysid qof kastaba dantiisu heestaa marka laakiin Soomaalida caay ayaga uu soo dhagteen mid kasta midka kale caynaya oo aflagaadeyna commentiga isku caynaya marka waxaas oo kale macnaha arintaas gabadha aan aad uga xumaaday sida gabadha loo caayay loo aflagaaday marka dadkaasna Ilaahay uga baqaan gabadhaas miskiinta hadaayaan marka waxaan leeyahay nimanka waxaan dhahayaa nimanka dhahaya
nimayo horta waa inaa ilaahay oga baqdaan dumarkiina oo dumarka aada caawisaan oo guryaha dumaayo. gabadhii hadday qaldan tahay hataa waa inaa adig ka roonaato oo adig ka wanaagsanaato oo qalad kasta oo gasho waa inaa u samartaa. gabadha weliba hadda caruur meesha ay joogaan waa in aada laiskugu samraa. guryaha dumistooda oo la duminayo waa in laga foojignaado oo aada iyo aada laiskaga ilaaliyo oo labada dhinacba ay macnaha gabadha iyo wiilkiiba ay aada iyo aada macnaha ay u ilaaliyaan gurigaas siduu ugu dhisnaan lahay gurigooda. oo dhibaato kasta oo imaadaba ay wax ay xalisan karaan ay ka dhigaan ay xaliyaan. insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa guryaha muslimiinta ilaahay hanoo aslaaxiyo insha allah, shartana ilaahay naga qabto. marka waxaa waaye ninka waa inuu markastaba uu dulqaataa. dulqaadka waa inuu leeyahay. gabadha hataa hadday iida xunta hataa oo macnaha gabadha ay xoogaa dulqaadka uu ku yaryahay hataa ama dabeecadeeda xoogaa ay adagta hataa waa inuu dulqaataa oo caruurta ay beri ka maalin ay gabadha ay ku rafaadin single mother-nimo ay kusoo korin oo caruurtiisa ay duurka ka gelin. magaalada aan joogno caruurihii hadda qurbahan aan joognaa, qurbahana aada iyo aada hadda loogu dhibaateysan yahay. caruurihii suuqay galeen, si u badan yihiin caruurta hadda suuqay galeen. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa caruurteena inuu noo hadeeyo oo guryaheenana uu ilaahay noo islaaxiyo insha allah hadduu alla idmo. marka intaasaan oranayaa. marka wiilkii waa inuu qaladka markastaba waa inuu gabadhi markay reerkii kala tagaana waa in gabadha qaladka aana la saarin. oo waxaa dhici karta badanaa intaa arka hadda oo qoysas ah gabdhihiaa rafaadsan. wallaahi been inaan kuu sheegin, gabdhihiaa aada u dhibaateysan. gabdho rafaadsan oo silacsan oo caruurta wax la daryeelaya jirin oo ninkii uu iska wareegayo oo dan uu ka leeyahan reerkii ayaan arkay. si ay u badan yihiin soomaalidana saas waa. marka insha allah waxaa idin rajeynaya kheyr iyo barwaaqo. wax badanna waan kasoo hadli doonaa insha allah. brogaraamo badanna waan ka hadli doonaa insha allah qoysaska hadduu alla yiraahdo. ilaahay waxaan ka barinay shartan ilaahay inuu naga qabto. ilaahay kow aan weydiisanaynaa insha allah. guryaheena ilaahay inuu noo adkeeyo. walaalayaal intaasaa idinkaga tagay. kheyr iyo barwaaqaan isku ognahay insha allah. ani waan ku cusbahay youtube-ka. gabar walaashin oo youtube-ka cusuba ahay. waa inaa igu soo xirantaan oo subscribe ii saartaan oo ii sheer gareysaan insha allah. ii sheer gareeya insha allah. marka intaas ayay maanta noogu eg tahay. aada iyo aada u mahadsantihiin. thank you for watching us insha allah. aada iyo aada u mahadsantihiin. waan idinkaga mahad celinayaa sidaad ii daawanaysaan. insha allah commentiga iyo wax kastana waa xaggiina insha allah. kheyr badanaa isku ognahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.